ما شاء الله إذا عاد رسالة ميل كستو أجوتا مع التاجرين وإن سلامة والذين حالة هذه واي لما بيلو وراله هو عن كلام مار من أياه هوان كل يوم اسمه قرصدين ما شاء الله ساكا إيو شلي إيمانتنا اسمه بس معها هاي مركز دجالك سدح بريو كله هو سعودي قصار ما كذا شيء لبض بيل ما وحاك لجاري قصارها كذا شيء دمشق بابا واجران وحي بإلهي دم الله ويدنتين لكن وحي النول نول باهن كهرتبي المسمين شلا وديالي جيران قلبي بأن دجالك شلا صباح دي هرب مصران دهوري ميلا صوب بلوري وديالا كوبحي عندنا الساكة وديالا كوكلاحي ودياشي جري يمامك دغمدا ساكة جري dagaalka hadda meel kasta oo degmada Walaweyn ka bari ilaa iyo waqooyi gaaro odayaalaha hadda ku dhex jiro dagaalka waa istaagay habada ma jirto wixii dhiman lahaa waa dhintay wixii dhaawac noqon lahaa waa dhaawac ay noqdeen dad walaal oo ehel ah dhex galay oo Soomaali ah beelahaasi marka ma markii ugu horeysa halkaas dagaal ku dhex maro masmarar badan ah jirta dagaal horta beelaha shanta caleema dagaal oo qori isu qaato isdilo way ku yar tahay beelahan umaleynaayo intaan hadda nabadoon ani aan noqday inay hub isu qaateen oo ay isdilaan ma arkin laakiin dagaal afeed waa jiray iyo mid uleed iyo ka dagaal maaha dagaalkan oo rasaasta ah dagaal loo yaqaanaa marka ma arkin ani kulleyba wax garabnimadeedii hadda intaan hadda oo nabadoon aan noqday markaan haddii laga yaabo mar kale ay jirto oo aniga hadda aan xasuusan waayo haye waa halkee marka tuulooyinka ay dadkaasi ku dirreen tuulooyinka degmada Walaweyn bari waaqooyi wixii jiro dhan hal tuulo iyo laba tuulo ma aha tuulooyin badan waaye labadaas qabiil ayagaa diris ah ayagaa walaalo ah ayagaa isu gurmada waa dad iswalaalsan jiray oo ayagoo beelaha shanta caleema ka tirsan haddana ayagaa isku diris ah marka daruurtu waxay kaliftay dagaalka beertaas uu ka bilaawday inuu tuulooyinka uu gaaro marka tuulo hal iyo laba iyo saddex iyo maaha waa tuulo fara badan oo midna inta degan oo saddex kilomitir haddaan aan u dhahayn saas buu ku fiday dagaalku wuxuu bilowday daraas galabtii uu bilowday waa istaagay hal tuulo oo magaalada oo dhanka galbeedka ah meeshuu ka bilowday galbeedkii barigu isu bedeli galbeed iyo bariga isu bedela galbeedkii hadda dagaal kama socda bariguu maray maamulka maantuu tagay ilaa shalay dagaal oo fadkii hore ma socon kulley shalay ciidamo badan ayaa la diri lahaa magaaladana waxaa waaye meesha hadda ay joogaan waa 25 kilomitir ama 30 kilomitir mana lagu degdegi karo sidaa sheegtay dagaalku waa dagaal weyn oo waxa leedahay shalay uu bilowday ilaa iyo maanta uu socday tuulooyin ku ka bilowday ilaa dhowr tuulo gaaray soo dagaalka sidaas u weyn maamulka maxay uga aamusnaayeen maamulka hadda fiiri maamulka aamusnaanta shalay illa baa la waday odayaasha been maamulka dadkiisa xurma adiga saxaafada tahay ala cod iga rabtaa maamul markuu dawladda oo dhan israacsiisan tahay ama awood uu leeyahay uu meeshuu rabo tegi karaa marka hadda maxaa wadaan odayaasha ka mid tahay magaaladaasi maxaa hadda dadaalo wadaan oo dagaalkaasi ku qaboojinaysaan tuulooyinka hadda kula hadlayo odayaal oo shan caleema baqan inay aaw soo seexdaan duurka ay soo seexdaan lagu ogyahay raashin baa hadda u sameynaya aniga kula hadlayo baawura u dhiibi rabaa beel malaga soo hoyno tuulo walba dalaad jiifanayo insha Allah taala nabadaan ka sugayna walaalaheena labada beelood isdagaalayo nabad waa loogu baaqay maamulkoodana waa u tagay ciidanka daraawiishta koonfur galbeed degmada Walaweyn iyo maamulka maanta way jireen way la soo hadleen koday shacabka meesha jooga oday ka soo duuduubeen insha Allah rasaada meeshaad ka dhageysan doontaa wiligeena shan caleemo saarna ma qaban ilaahay waxaan ka baryaynaa biishaan biidacdooda Allah ku shubo marka waa sidee hadda deegaanadii iyo tuulooyinkii lagu dagaalamay xaaladooda tuulooyinka iyo meelaha lagu dagaalmay ama beer ha noqoto xaaladeeda 100% waaye
haddaa rabtid odayaal meesha jiraan nabaradooda kusiin karaa waa wici kartaa odayaal oo 5 aleebaa dhex joogta hadda xabad wax la yidhaahda ma jiro labada qabaa'ilba ulamadooda iyo akhyaartooda loo yeeray waa lala hadlay xabad ma maqli karno wixii dagaalka ka bilowdayna halkeeda waxaa halka gaari doono beelaha 5 aleebo hadda dagaalka ma socdaa mise waa uu joogsaday dagaal ma socdo dagaal saakada dagaal ma dhicin yaan been la sheegin Soomaali been loo sheegin odayaalka labada beelood isdagaalay naftirkooda ayagoo ku jira 5 aleema ahaan meesha loogu gurmaday 4 baaburaa baxday ilaa haddana way jiraan tuulayna u tegooyin dadka dhufeyseen iskugu jiraan waa laga kala qaaday meeshaas waa hadda gacanta ku haya awoodeeda ilaaha haayo odayaasha beelaha 5 aleemo jabruul iyo barbaaro qulmadooda loo yeeray beergaladkooda loo yeeray waxaa la yidhi wixii xabad qash ka siiyo dhammaanteena waan isugu tagaynaa saa sheegayso caleeda dadaalka waxaa wadaan hal beel oo keliya beeshii kalena ayagana أنا بيلكم مدين هل بيل كليكم مش هيك شن على ما كنا بيلا شن على ما أرض جبلول بربارة هيفيجا خبر شن على ما أنت صلى واحد استقال إنه جبلول إيه بربارة أيوة دجال كود صعد وسند هذا قف ولا هذا أيه صعدان أيوة هركاي جبلول مركي حافظ هذا الآذى جبلول الله بربارة مركي الآذى هنا بربارة الله ويا هيه مركي حالته هذه وايه wax isdilay hadda maxabad socdo wixii ku sheego been waaye idaacadaha oo beenta laga sheegayo hal laga daayo Soomaaliya la barakicin hadda badibnahay dib kale yaana loo darin ina xabadu way socotaa leeyahay qolada Facebook iyo idaacadooyinka faalsada hal laga daayo ummadda la barakicin shaqaale meel kastay joogtaa Soomaaliya meel kastay joogtaa ummadda islaamka hal soo dhaweeyo nabad loogu baaqo idaacadaha qaasku waxaan leeyahay waxaan xaqiiqo u haynaa yaa la deyn bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shubo xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 104 gees adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor